Assalaamu calaykum. Barnaamijka maanta ayaa waxaan uga hadli dhulka meel ka mid ah oo haddaad tagtid miisaankaagu yaraanayo iyo waxa keenay in dayax-gacmeedyadu dhulka ku wareegaan iyaga oo aan matoor u baahnayn iyo xiriirka ka dhexeeya arrimahan. Balse marka hore, su'aal caan ah ayaa jirta oo sidaan u dhigan: kee ayaa miisaan culus, kiilo bir ah iyo kiilo baalasha shimbiraha ah? Waxaa dhici karta in qof aan si fiican uga fakarin uu dhaho kiilada birta ah ayaa miisaankeedu culus yahay. Laakiin markii si fiican loo fiiriyo ayaa waxaa caddaanaysa in labadooduba kiilo yihiin oo macnaheedu yahay waa isla eg yihiin miisaankoodu. Iyadoo oo isaasi tahay ayaa waxaa dhici karta in kiilooyinkaas kala weynaadaan. Haddii tusaale ahaan midkood lagu miisaamay Norway midda kalena Soomaaliya oo aad hal miisaan ku miisaantid, isku miisaan ma noqonayaan oo wax aad u yar ayay kala weynaanayaan. Intaanan faahfaahinta sababta arrintaasi ka dambaysa u gelin ayaa waxaan rabaa inaan erey bixinno arrintan xiriir la leh soo qaato. Laba shay ayaa jira oo la isku khaldi karo laakiin kala duwan oo sayniska ama fiisikiska lagu qaato. Waxaan isku dayayaa in si fudud oo qof walba uu fahmi karo aan uga hadlo. Labadaas shay ayaa waxa la kala dhahaa cuf iyo culays. Ingiriiskana lagu dhahaa mass iyo weight, Carabigana wasni iyo kutla. Xiriir ayaa ka dhaxeeya laakiin waa ay kala duwan yihiin. Cufka ama maaska ama kutlada ayaa waxa uu yahay waxa uu shaygu ka samaysan yahay. Tusaale ahaan cufka dadka waxa weeye murqaha, lafaha iyo unugyada yaryar ee jirkeenu ka samaysan yahay. Cufta kiiladii birta ahaydna waa atamyada yaryar ee ay ka samaysan tahay. Cufta ama maaska isma beddesho, laakiin markaan fiirino culayska ama weightka ayaa waxa ay ku xiran tahay meesha la joogo. Oo culayska waxaa saameeya gravity-ga ama soo jiidashada dhulka. Haddii shay kor loo tuuro, dhulka ayuu ku soo dhacaa soo jiidashada dhulka darteed. Soo jiidashadaasi waxay saameyn ku yeelataa culayska. Tusaale ahaan miisaanka la isku cabiro oo lagu ogaado culayska shayga la miisaamayo, soo jiidashada dhulka ayaa raad weyn ku leh. Oo haddii dayaxa la joogi lahaa, soo jiidashada dayaxu waa ka yar tahay tan dhulka, taasoo macnaheedu yahay in culayskaagu yaraanayo haddii aad dayaxa tagtid. Oo qof 100 kiilo dhulka ku ahaa ayaa markii uu dayaxa tago miisaankiisu waxa uu noqonayaa 16 kiilo iyo bar. Taas macnaheedu maaha in qofkaasi caatoobay oo weli cufkiisii isma beddelin oo baruurtiisii iyo muruqihiisii weli waa leeyahay. Waxa isbedelay kaliya soo jiidashada ama gravity-ga meesha uu joogo oo kaliya, taas oo saameyn ku yeelatay culayskiisa iyo miisaankiisa. Qofkaas markii uu dhulka ku soo laabtana waxa uu noqonayaa 100 kiilo. Dayaxa kaliyana maaha ee culayska dadka iyo waxa kale oo la miisaamayo dhulkan aan ku noolnahay korkiisa waa uu isbedbedelaa. Sababtoo ah meel walba oo dhulka ka mid ah isku mid maaha awoodda soo jiidashada dhulka, taasoo saameynaysa culayska qofka. Waa waxa keenay in miisaanada lagu sameeyo sixitaan ama wax loogu yeero calibration, khaasatan miisaanada sensitive-ka ah ee waxyaalaha yaryar lagu cabiro sida garaamyada iyo wixii ka yar. Waxaa miisaanadaas lagu saxaa gravity-ga meesha uu joogo. Haddii meel kale oo ka fog miisaankaas loo qaado, sixitaan kale ayuu u baahan yahay. Marka haddii hal miisaan oo aan la badbedelin markii waddan kale la aadayo aad soo qaadatid oo aad saartid kiilo bir ah, waxaa dhici karta in miisaanka birtii kiilada ahayd ka yaraato ama ka badato kiilo. Satellaadyada dhulka ku meeraysta ayaa waxaa lagu ogaaday meel haddii la tago culayska shayga la miisaamayo uu wax yar kordhayo, oo waxay noqotay meel ku dhow North Pole-ka ama cirifka waqooyi ee dhulka. Meesha ay dhici karto in culayska ugu yar uu shay dhulka ku yeelanayana ayaa waxay noqotay korka buur ku taala Peru oo la dhaho Huascarán. Haddii marka labada meel aad isku miisaantid oo hal miisaan isku mid ah isku cabirtid, waxaad arkaysaa in miisaanku wax yar isbedelay. Oo haddii 70 kiilo qofku yahay markii uu joogo meesha cirifka waqooyi ama North Pole-ka u dhow, markii uu buurta Peru tago waxa miisaankiisa ka naaqusaya nus kiilo oo waxa uu noqonayaa 69 kiilo iyo bar. Sababta ayaa ah in soo jiidashada dhulku ay kala duwan tahay labadaas meelood oo mar walba oo aad xudunta dhulka ka fogaatid, soo jiidashada dhulka waa yaraanaysa, taasoo keenta in culayska waxa la cabirayo uu kala duwanaado. Arrintan oo caddaynaysa in culayska shaygu isbedeli karo. Sababta keenta in soo jiidashada dhulka ama gravity-giisu ay kala duwanaato ayaa ah in dhulku uusan sinnayn. Oo haddaad meel buur ah kortid, soo jiidashada dhulku waa ka yaryahay markaad joogtid dhul hoose. Arrintaasoo sababta in culayskaaguna isbedelo. Mar walba oo wadamada dhulbaraha dhacana la soo aadana miisaanku waa yaraada. Maadaama dhulku uu u weyn yahay bartamihiisa, waa waxa keenay in buur ku dhow dhulbaraha dhulka ay noqoto meesha culayska ugu yar shay dhulka jooga uu yeelan karo. Waxaa kaloo jira qaab kale oo culayskaagu isku bedeli karo meesha doontid aad joogtide. Weligaa ma kortay wiishka dabaqyada dhaadheeri leeyihiin ama ashansooraha elevator-ka? Markaad ku dhex jirtid qofku waxa uu dareemayaa isbeddelka culayskiisa ku dhacaya.
marka uu wiishku bilaabo inuu hoos u dhaqaaqo culayska qofku hoos ayuu u dhacaa markii uu kor aadana waxaad dareemaysaa culayskaaga oo ziyaaday haddii aad miisaan saarnaan lahayd sidaas ayuu tilmaami lahaa oo markaad hoos aadaysid culayskaagu bilowga ayuu yaraanayaa markii wiishku kor u dhaqaaqayana miisaanku waxa uu sheegayaa in muddo yar uu culays dheeraad ah kugu darsamay haddaba haddii culayska uu shay leeyahay sidaas isu badbedelo ma dhici kartaa inuusan shaygu culaysba uusan yeelan jawaabtu waa haa waxaa dhacda mararka qaarkood in culayska shay uu noqdo eber ama waxaanba culaysba lahayn arrintan oo Ingiriiska loo yaqaano weightlessness sidan ayayna ku dhici kartaa haddii meel dheer shay laga soo tuuro inta uu shaygaasi soo dhacayo culays ma leh oo culayskiisu waa eber oo haddii qof gacanta ku hayo shay dhowr kiilo ah culayskiisa waa uu dareemayaa haddii uu qofkaasi meel taagan yahay laakiin haddii qofkaas iyo shaygii uu gacanta ku hayay isku mar meel ka soo dhacaan qofkaasi intuu hawada ku soo jiro ma dareemayo culayska shaygii uu gacanta ku hayay haddii uu qofkaasina miisaan saarnaan lahaa inta uu hawada ku jiro miisaankiisu waxa uu ahaanayaa eber xaaladdan ayaa waxaa loo yaqaanaa free fall oo shaygu haddii uu soo dhacayo wax culays ama leh xaaladdan ayaa waxay ku dhacdaa cirbixiyeenada loo diro dayax-gacmeedka ISS la dhaho ee dhulka ku wareega intaanan arrintooda u gelin ayaa waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto waxa keenay in satellaydyada ama dayax-gacmeedyada cirka loo diro aysan u baahnayn matoor marka ay hawada sare u baxaan dayax-gacmeedyada markii dhulka laga dirayo waxaa lagu qaadaa gantaalo shidaal badani ka buuxo si ay hawada dhulka uga saaraan markii ay hawada sare u baxaan ayaa gantaalkii waxyaalihii uu ka koobnaa ay ka daataan oo waxa soo hara dayax-gacmeedkii kaliya dayax-gacmeedkaasi uma baahna shidaal iyo matoorna oo hawada sare shaygu hadduu soconayo socodkiisa ayuu sii wataa oo ma istaago si uu u istaago waa inay wax istaajiyaan si in shay kale ay isku dhacaan qaanuun fiisikiska ayaa ah in shay aan dhaqaaqayn uu sidiisa u taagnaado ilaa ay awoodi dhaqaajiso shay soconayana sidiisa ayuu u socdaa ilaa ay awoodi istaajiso marka dayax-gacmeedka markii laga saaray hawada dhulka socodka ma joojiyaan laakiin dayax-gacmeedyada waxa kaloo saameyn ku leh soo jiidashada dhulka ama gravity-ga waa waxa keenay in dayax-gacmeedku dhulka ku soo wareego laakiin maxaa keenay in haddii dhulku soo jiidanayo dayax-gacmeedkaasi u soo dhici waayeen ilaa markii aan dhulka joogno shay haddii kor loo tuuro dhulka ayuu ku soo dhacaa oo dhulka ayaa soo jiita bal tusaalahan ila fiiri haddii dhagax aad gacanta ku haysay sii daysid dhulka ayuu ku dhacayaa oo soo jiidashada dhulka ayaa saamaynaysa laakiin haddii aad tuurtid soo jiidashada dhulka ayaa qalloocinaysa ilaa uu dhulka ku dhaco waxaa sidaas la mid ah haddii madfac la tuuro madfacaasi ugu dambayn dhulka ayuu ku soo dhacayaa laakiin waxa ka soo qaadaa haddii madfacaasi xawaare aad u dheereeyo ku soconayay oo keena inuu dhulka dhaafo soo jiidashada dhulka ayaa soo leexinaysa laakiin mar walba dhinac ayuu dhulka ka maraya markan ayaa waxa dhacaysa in madfacan uu dhulka ku soo wareego oo waxay la mid tahay inuu dhulka ku soo dhacayo laakiin dhinac marayo mar walba sidaasi waxa la mid ah dayax-gacmeedyada oo dhulka ayaa soo jiidanaya laakiin maadaama ay awal dhinac u soconayeen dhulka kuma soo dhacayaan ee waa ay ku wareegayaan haddaba ku wareegidda dhulka ayaa waxay la mid tahay sida wax dhulka ku soo dhacaya oo kale laakiin mar walba dhinac ka maraya haddaba waxaan soo iri in shaygu haddii uu soo dhacayo uusan culays lahayn dayax-gacmeedyada dhulka ku wareegayana waa ay soo dhacayaan laakiin maadaama ay dhinac u soconayaan waa ay hareer marayaan dhulka oo waa ku wareegayaan haddaba dayax-gacmeedka ISS ayaa waxaa loo diraa cirbixiyeeno kuwaasoo muddo jooga dayax-gacmeedkan ayaa haddii uu kor marayo isha si caadi ah loogu arki karaa oo ku dhowaad 400 kilomitir ayuu dhulka korkiisa ku wareegaa haddaba cirbixiyeenada dhex jooga dayax-gacmeedkan culays ma leh waxaana aad moodaa inay heehaabayaan haddii biyo lagu qubo dayax-gacmeedkaasi biyahaasi ma daadanayaan oo sida cirbixiyeenada kale ayay sabaynayaan arrintan ayaa waxay la mid tahay haddii aad dhulka joogtay oo aad meel ka soo dhacaysay markaad soo dhacaysayna ay biyo kaa qubteen adiga iyo biyahaas isku xawaaro ayaad ku soconaysaan oo kaama dheeraynayaan marka dadka dayax-gacmeedka saaranna waa sidaas oo kale oo biyahaasi sida dadka oo kale ayay sabaynayaan haddaba maadaama aysan cirbixiyeenada dayax-gacmeedka saaran aysan culays lahayn ayaa mushkilad qabsata oo lafahooda iyo murqahooda ayaa shiiqma ama daciifa sababtoo ah markaan dhulka joogno culayska jirkeenna ayaan lafaha iyo murqaha saarnaa laakiin markii ay cirbixiyeenadaasi kor jiraan culays ma leh oo murqahooda iyo lafahooda ma isticmaalaan sideenoo kale taasoo keenta inay daciifmaan marka waxay sameeyaan jimicsi oo mashiino ay ku tababartaan ayaa dayax-gacmeedka dhex yaalla gabagabadii culaysku waxa uu ku xiran yahay soo jiidashada ama gravity-ga meesha la joogo haddii ay soo jiidashadaasi badan tahay culayskaagu waa weynaanaya
haddii qofku soo dhacayana intuusan gaarin meeshii uu ku dhacayay culaysba ma leh sida cirbixiyeennada dayax-gacmeedyada jooga. qaybta labaad ee soo socota ayaan waxaan uga hadli doonaa haddii alla idmo arrin xiriir la leh gravity-ga. waxaan ka hadli doonaa sawirradii la sheegay maalmo dhoweyd inay tusinayeen godka madow ee laga helay hawada sare. balse inta ka horreysa nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullah.